بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan baddaawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala magaalada London waa barnaamij gaar ah oo kamid ah barnaamijyada aad ka daawataan Universal TV waxaana uu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay kulanka ballaaran ee ka dhacaya magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ay martigelisay Jamhuuriyadda Djibouti oo ah Soomaaliya iyo Somaliland markaynu eegno taariikh ahaan dalka Soomaaliya waa Jamhuuriyaddii Soomaaliya waxa ay ahayd mid markii hore ka koobantay laba gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed 26 Juun 1960 ayaa gobolada waqooyi waxa ay ka qaateen xornimadoodiina ay ka heleen gumaysigii Ingiriiska oo markaa isagu gumaysanayay 4 maalmood kadib markii la gaaray 1 bishii Juulaay 1960 ayaa waxa iyaguna xoroobay gobolada koonfureed oo Talyaaniga markaa uu gumaysanayay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ayaa halkaa ka dhisantay 1960 labada gobol ee midowgoodii waqooyi iyo weliba koonfur muddo 9 sano ah markii sidaa la wada ahaa oo laba doorasho ay dhacday ayaa aaqiritaankii military dalka uu la wareegay 1969 taasina ay keentay ilaa 1990 marka la soo gaaray in colaado ay dhaceen oo dowladdii lagu kacay militariga ahayd kadibna ay burburtay 1990 burburkii ah waxa uu keenay in qabiil loo kala baxo qolo walbana halkii ay deganeed ay ku laabatay dadka Soomaaliyeed markii January dowladdii ay meesha ka baxday dhowr biloodna la joogay kulamo ballaaran ayaa ka dhacay magaalooyinka Burco iyo weliba Boorama oo ay ka qayb galeen guud ahaanba odayaasha waxgaradka aqooyahanka iyo inta ka soo jeeda guud ahaanba goboladii waqooyi ee markii hore Ingiriisku uu gumaysan jiray aaqiritaankii 18 bishii May 1991 ayay ka dhawaajiyeen Somaliland inay dhabarka xijisay Soomaali inteeda kale oo ay ka go'day iyagoo sheegay shalayna walaalahood inay u yimaadeen maantana walaalahood inay ka tageen sababo jira awgood halkaas waxaa lagu yeeleelay xukuumado kala duwana oo soo gaaray ilaa iyo maanta 2020 madaxweynihii ugu horreeyay ee Somaliland waxa uu ahaa Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Toor waxaa xigay madaxweynihii kale Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaa xigay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxaa xigay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo ugu dambeystii iminka uu madaxweyne ka yahay Somaliland Muuse Biixi Cabdi intii haddaba la kala tegay dhinaca aqoonsiga Somaliland marna ma aanay helin laakiin way ku dadaaleen geed gaaban iyo geed dheerna way u fuuleen sidii adduunyada aqoonsi uga heli lahaayeen goon istaagga ay istaageen waxyaabo badan ayay qabsadeen dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha Somaliland marka la fiiriyo guud ahaanba goboladii kala duwanaa waxaa la isku dayay dhowr jeer in kulamo la dhex dhigo Soomaaliya iyo weliba Somaliland taasoo ujeedka uu ahaa in aan la kala tegin ee la wada joogo oo loo arkayo kala tagu inuu yahay mid aan qumanayn marka la fiiriyo guud ahaanba dadka dega aagga ee walaalaha ah laakiin laguma guulaysan xukuumadihii dalka ee ku meel gaarka ah iyo xukuumadaha federaalkuba ay ku dadaaleen laakiin suurtagal ma aanay noqon kulamadaasina kama aanay dhicin dalka gudihiisa ee waxay ka dhacayeen waddanka Turkiga laakiin intii dowladdan iminka ay jirtay ma aanay jirinin kulamo la isugu yimid waxaase jiray in la magacaabay guddi la yiri waxa uu yahay guddiga wadahadalka Somaliland laakiin ay ka biyo diideen Somaliland arrinkaasi waxa kaloo Somaliland horey ay ugu xujeysatay ama ay u soo bandhigtay xukuumadda Soomaaliyeed markasta oo wadahadal la gelayo dadka ka imanaya dhinaca dowladda Soomaaliya inaanay ku jiri karin dad asal ahaan ka soo jeeda dhinaca Somaliland macnaheedu uu yahay qabaa'ilka kala duwan ee Somaliland deegaanadeeda dega dad ka tirsan inaan la keenin si ay ula hadlaan dadka kale oo ay wada dhasheen iyadoo haddaba amuuruhu ay sidaa yihiin oo la kala tegan yahay ayaa arrin ka duwan uu soo baxay dhowr bilood ka hor magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi faahfaahinno aad u ballaaran lagama bixin walow labada dhinacba ay hadleen laakiin dhinaca waqooyiga iyo dhinaca koonfurtu dadkeedu 100% ma aanay helin xog ku saabsanayd Muuse Biixi iyo Farmaajo waxay ka wada hadleen Abiy Ahmedna uu goobjoog ka ah oo isagu ah ninka martigeliyay dabcan qolyo kale oo ah bulshada caalamkuna ay joogeen iyadoo haddaba la eegayay xaalku sida uu yahay ayaa waxaa jiray barnaamij ka socday guud ahaanba geeska Afrika oo taa macnaheedu uu yahay dadka geeska Afrika wada dega ama gobolada maaragta agdegani in ay wax wada qabsadaan oo ay noqdaan kuwa iyagu suuq kaliya leh oo kale haddii marka la doonayo in wax la wada qabsado oo Soomaaliya ay jirto Itoobiya ay jirto Djibouti ay jirto Eritrea ay jirto Kenya ay jirto sidee wax loo qabsan karaa Soomaaliya samamida waa maya oo Soomaaliya maxay tahay waa Somaliland iyo Soomaaliya waxaa la baadi goobayaa sida meesha ka muuqata Soomaaliya iyo Somaliland oo mid qura ah oo ah Jamhuuriyad Soomaaliyeed arrinkaasi ma sahlan yahay xagga Soomaaliya ma ka sahlan yahay xagga Somaliland ma ka sahlan yahay
iminka waxaa magaalada jabuuti ku sugan oo maalinkii maanta aa tegey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamanka mursal iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye iyo xubno kale. dhinaca somalilan hargeysa waxaa ka ambabaxay saaka oo jabuuti ku sugan waa madaxweyne muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaha golaha guurtida suleymaan maxamuud aadan iyo xubno golaha wasiirada somalilan ka tirsan. shirka waxaa martigelinaya hoteelka kambiski lagu kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle. waxaa goobjoog ka ahaa abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo kalkii hore martigeliyey, shaksiga u muuqdana uu yahay in arrimahan uu buddigo u yahay marka la fiiriyo arrimaha soomaaliya iyo somalilan. waxaa jooga xubno kaloo caalami ah. intaanan haddaba arrimahaasi u gelin ayaan gooraan fogeyn waxaan la sheekaystay cabdulaahi axmed nuur, wariyaheenna ka mida wariyaasha telefishinka universal oo isagu shirka goobjoog ka ah hoteelka kambiski. waxaan weydiiyey cabdulaahi, maadaama maanta la kulmay dabcan ay u muuqato in kulanka uu bilow yahay, xaalku siduu yahay, maxaase maanta dhacay, yaase joogay? waxa uu igu jawaabay. aad baa umahadsan tahay. waxaan ku suganahay magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti. maanta waxaa si rasmi uga furmay shirka wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo 4 sano kadib markii ugu horreysay maanta shirkaas uu dib u bilaabmay. dhinaca soomaaliya waxaa shirkan u matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo wafdi ballaaran uu hogaaminaya halkan ay yimaadeen. waxaana wafdigiisa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda. dhinaca somalilan waxaa hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi, guddoomiyaha golaha guurtida mudane saleebaan ayaa isna ka mid ah iyo xubno ka tirsan golihiisa xukuumadda. marka waxaa goobjoog ahaa wadahadalladan oo ra-iisul wasaaraha waddanka ee ethoobiya abiy axmed, iyada oo shirka si rasmi ugu furay madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo dowladdiisu ay martigelisay shirkan. horey dowladda jabuuti waxay u martigelisay ama u qabatay shirar kuwan oo kale ah oo soomaaliya iyo somalilan lagu wada hadashiinayay. marka shirkan waxaad moodaa inuu ka yara duwan yahay shirarkii hore markaad fiiriso wafdiga miisaanka culus ee ka yimaaday soomaaliya, iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay oo madaxweynaha soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaruhuba ay ka wada qayb galaan shir wada hadal soomaaliya iyo somalilan. dhowaan ayaa la soo saari doonaa hadduu wahagaag. aad buu u mahadsan yahay maaragtay wariyaheenna cabdulaahi axmed nuur. haddaba daawadayaal, kulanka oo ka dhacay hoteelka kambiski inta badanna ay is arkeen hogaamiyaasha labada dhinac soomaaliya iyo weliba somalilan, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xubnahaasi sida ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha martida loo yahay iyo weliba midowda yurub wakiilkooda soomaaliya u fadhiya iyo weliba safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya, ururka midowda maaragtay africa iyo weliba urur goboleedka igaad iyo xubno kale. ayaa ujeedku waxa uu yahay in arinkan laga dhawaajiyo oo ah siday suurtagal ku tahay in soomaaliya iyo somalilan oo kala tagana ay ka mid noqdaan xayndaabka wada jira oo markaa aan la oranin soomaaliya iyo somalilan la yidhaahdo soomaaliya. arrintaasi ma arrin sahlanba? wax badan ayay ka biyo diideen somalilan marka la fiiriyo, laakiin soomaaliya wax badan ayay waxay lahayd midowgii ayaa halkiisii ah iyagoo sababa uga dhigaya. somalilanna siyaasiyiintii soo martay waxay u sameeyeen qiil iyo sababta keentay inay ka go'aan soomaaliya oo ay shalay u tageen. maxaa yeele waxay ku celceliyeen iyadoon cidno qasbin in 26 juun markii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi ay iyagu go'aansadeen walaalahood inay u tagaan. markan dambana inay gocdeen waxyaabo badan oo ay filayeen inay dhacaan laakiin aanay dhicin, iyo waxyaabo ay arkeen oo aanay filaynin inay dhaceen. taasina ay sheegteen inay qiil u tahay in ay soo laabteen. haddaba su-aasha waxa ay tahay somalilan siyaasaddeeda maanta marka la fiiriyo siyaasiyiintii soo martay oo hadda nool iyo kuwa kale iminka xilka haya, siday u arki karaan arrintaas? ma ka wada siman yihiin in la yidhaahdo ha laysku laabto oo sidii soomaaliya loo wada noqdo iyadoo nidaam la samaysanayo, mase ma ogola? marka la fiiriyo sanooyinkii ugu horreeyey siyaasiyiintii hore iyo kuwa dambe markaa xilka haya intooda badan waxay u muuqdeen dad ka siman in aan la laaban oo gooni la kala ahaado oo laakiin wax wada qabsi laba wadan oo darisa. laakiin iminka waxay u muuqataa siyaasiyiinta qaar reer somalilan iyo kuwa hadda xilka haya oo ay dhici karto inaanay hadlin inay qabaan inaysan waxba dhibaynin in la isu yimaado oo maaragtay la noqdo mid qura, laakiin iyadoo nidaam la samaysanayo. ayla soomaaliya markii ay soomaaliya ahayd 18 gobol ayay ahayd. waxaa magaalo madax ahayd magaalada muqdisho.
magaalo madaxda labaadna waxay ahayd magaalada hargeysa oo iminka hargeysa ay tahay magaalo madaxda ee somalilan. haddaba daawade fikirkaaga ka dhiiba aragtidaada shirka jabuuti ee dadka facebooka ku jira iyo dadka telefishinkaba. ma raacsan tahay shirka? yes. ma raacsan tahay shirka? no. yacni qoraalkaaga ama fariintaada waad ku qori kartaa xagga facebooka, afkana waad ka sheegi kartaa. marka maxaa yeelay waxaa lagu eegayaa barnaamijkan isaga ah ee qof walba fikirkiisu sida uu yahay. markaad yes aad bixidid faalladaada aad ku qortid facebooka iyo telefishinkaba ka tiraadid, muuqaalka shaashadda ayaad ka arkaysaa had walba inta ay codaynta ama tiradu ay marayso, adoo ogol iyo adoo diidan. waanad sababaynaysaa oo waxaad leedahay sababtaasaan ku diiday ama sababtaasaan yes ku iri oon ku ogolaaday. laynka telefoonka ayaan eegayaa markan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan kuu soo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaad joogtid? cabdimadhiga waxaan joogaa hargeysa, magacaygu waa saacad galaxy. shirka jabuuti waa la socotaa? si fiican baan ula socdaa. ha miya adiga yes miyaad taha mase no? anigu waxaan taaganahay no. haye waana sababaynayaa. haye cabdimadhiga waxaad og tahay soomaalidu midnimo 1960 ayay midoobay somalilan iyo soomaaliya. iyadoo shantii kale oo saddexdii kale ay maqayii shantii soomaaliyeed. runta markaaynu ka hadlayno lagama faa'iidin 1960 midoogii la midoobay wax harumara oo lagu majeerto oo maanta lagu muxuboodo oo la raadiyo oo la yidhaahdo waxba aynaga maqaay wixii aynu kalimaan ku noqonno. aad iyo aad lagama faa'iidin. haddii iminka siyaasiyiinta somalilan waynu tijaabinay midnimadii. ku gartay waxaa laga dhaxlay aabayaasheen iyo awoowayaasheen nooga tageen naxli kala fogaanshiyo. ku gartay raalli ahow adoo raalliya adoo raalliya ku gartaan ismaqalno. haddii iminka madaxweyne muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaha golaha guurtida suleymaan maxamuud aadan, dabcan waa labadii shaksi ee aan oran karo somalilan siyaasaddeeday ugu sarreeyaan, jabuuti joogista ay joogaan waxa ay u soo qaadaan somalilan waxay noqotaba miyaad diidaysaan adinku? waxay noqotaba horta waa masiirka ciddii ugu sarreysay oo iyaga xukuma dee oo saxiixi kara, heshiis geli kara, cid la kulmi kara. laakiinse in ay midnimo soo qaadaan waa habeen xalay tegay waan diidayna hadday midnimo soo qaadaan. aad iyo aad umahadsan tahay adigoo hargeysa jooga oo barnaamijka igala qayb galay. laynka kale telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. ha walaal aad baan kuu soo dhaweynaya. magacaaga halkaad joogtid? magacayga faadumo waaye, waxaan joogaa jarmalka. gabadheer jabuutiyana waanahay. waxaan leeyahay shirka waxaan leeyahay yes insha allah guul soomaali. haye maxaad ku sababaynaysaa adigu? waxaan jecelahay somaliland bay iskaba dhaafin jabuuti laftarkeyga aan soo noqono soomaali mid kow ay noqotaan rabaa israacno. ood israacdaan adigoo u arkaya in wadajirka uu quman yahay? wadajirku quman yahay insha allah. odayaasheeda, adeerayaasha, aabayaasha, allaha shirka hala qabto, hala garab galaan leenahay. faadumo aadaa umahadsantaa adigoo jooga jarmalka, waa kuu mahad celinaya. laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halo. calaykum salaam. halo. aad baan kuu soo dhaweynayaa. magacaaga halkaad joogta walaal? magacaygu waa ibraahim oo kaa soo wacaya muqdisho. ibraahim soo dhawow. adiga sidee u aragtaa yes mise no shirka jabuuti ee maantay furmay? haddaan kuwan mara waxaa waaye horta yes ayaan dhihi lahay. maxaa yeelay shirkan waa shir masiiri ah oo ummaddii soomaaliyeed oo 30 sane ugu dambeeyey kala taagnaay inay isku keenta laga yaabo. rajo fiicanna ay ka qabaan soomaalida intooda fara badan. markii aad fiirisid baraha bulshada, markii aad fiirisid dadka la hadashid, waxaa arkaysaa in dadku ay leeyihiin in ay isku imaadaan mar labaad, inkastoo dad yar oo ay jiraan oo ayagana fikirkoodu sida kale uu yahay. laakiin waxaan aaminsanahay meeshaan ama shirkaani wuxuu ku tarjumayaa dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo 30 sano ugu dambeeyey mustaqbalkoodii uu ku lumay kala tagnaanshaha. ayaan waxaan aaminsanahay in mustaqbalkoodii meeshaasi laga rabo in ay mas'uuliyiinta meesha jooga ay ku soo cadeeyaan. maxaa yeelay intaasi 30 sano kadib ma la noqon karo wixii 30 sano lagu jiray ma la noqon karo. laakiin ibraahim wuxuu ku yiri wiilkii ugu horreeyay hargeysa joogay dhib iyo balaayan la kulanay, marka ma rabno inaan ku laabano. adinka ma ballan qaadi kartaan haddaad reer muqdisho tihiin dhibka la sheegayo mase aaminsantihiin inuu jiro? horta waxa waaye dhibaatooyin fara badan waa la soo maray soomaalida. qolada koonfurta joogta iyo qolada waqooyi joogta intaba 30 sano ugu dambeeyey qolada koonfurta joogta sidoodaba ayaga ruuxooda waxa dhibaato ayagana ku jireen.
qolada koonfurta joogtana sida waqooyigana waxaan aaminsanahay in ayagana dhibaato ay la kulmeen xilligii dowladda maxamed siyaad iyo wixii ka dambeeyaba oona ay ku dhiftoodeen xitaa ictiraaf la-aanta laakiin waxaan aaminsanahay in soomaaliya oo midowda ay maaragtay waxaasoo dhan ay dhaqi karto dhibaatadii aninkana gaartay koonfurtana ay dhaqi karto dhibaatadii waqooyi gaartay ay dhaqi karto soomaalida isku imaatana ay tahay wax ugu muhiimsan oo ibraahim aad umahadsantaha adoo muqdisho jooga daawadayaal fariintaada ha iyo mayada oo yes iyo no facebooka ku qor qoraal yes waad aaminsan tahay shirkaas waad raacsan tahay no si looga arko screenka adigana fikirkaaga loo arko yes iyo no facebooka afkana waad ka oran kartaa yes iyo no laakiin qoraalka oo xagga facebooka waa muhiim laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقمدي aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid aniga axmed maxamuud baa la yidhaha waxaan joogaa waddanka Yusuf Kowde aad baan kuu soo dhaweynaya ma la socotaa in maanta Muuse Biixi iyo Farmaajo ay joogaan Djibouti aniga waan la socdaa anigu reer Soomaaliya waan hay waan la socdaa ma garad si fiican waa sidii aragtidaada adoo Australia jooga yes iyo no marka hore waxa weeye waa yes marka hore haye anigu waxaan ahaa dadkii berigii dagaalku dhacayay gaadiidka watay waddanka joogay waa gartay boqolkiiba boqolna waan raacsanahay waa gartay waxaan u raacsanahay waa dhowr masalo haye ta koowaad Soomaaliland xasuuq ma la taagantay anaguba wax waan xasuuqnay horta marka hore waa gartay dawladdii aan la dagaalamnay aanu ka adkaanayna way iska tagtay waa gartay maanta markaa meel aanu ka sii idhaahnaan waxba nala xasuuqayo aanu dadka ku diidnaa oo Soomaalida aanu ku diidnaa horta marka hore ma jirto waa gartay talabaad waxa weeye wax allaale iyo wixii aniga gaarigayga halkii maalintii waddanka uu la qabsaday aan ku dadan yahay waa gartay 800 kun oo gaari oo candhameydla baa iska dadan waa gartay 900 kun oo sarweey iska yaala waa gartay 900 kun oo maarsheed yaala marka arrimahaas oo dhan markaan ka nimaadno arrintan Djibouti loo joogo waxaad leedahay waa guul waana arrintaasi waa guul Somaliland haddaan nahayna waxaan leeyahay ninka madaxweynaha meesha tagay oo odayga tagay baarlamaanka sheeganaya maanta Soomaali midnimada u soo qaadaan dadku horumar ha helo imkaaniyaadku ha kala socdo haddii ilaahay beedmu ka dhigay dawladuhu ha yimaadaano meesha ganacsi ha yimaado maalgashi ha yimaado dadku wuu xulxulay dadku baktigu ku dhaweeya meesha yaalla aad baad u mahadsantahay adoo Australia jooga siyaasiyiin baana dadka kale hor taagan ama koonfur ha jooga ama Somaliland ha jooga ama Puntland ha jooga aad buu mahadsan yahay guranayuba dadka Soomaaliyeed kale hor taagan aad iyo aad waan dareemaya codka hadalkaaga waan fahmay fikirkaagana waa dhiibatay waad qabtaa haabaad qabtaa yes aad u mahadsan tahay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid waxaa la hooyo Soomaaliyeed baan ahay haye oo joogta waxaan joogaa Ingiriiska London ha codkaaga kor u qaad yes mise no adiga London haye London shirka Djibouti Muuse Biixi iyo Farmaajo yes mise no haye anigu waxaan ahaa dadka calanka saaree mushaaxa calanka muqdisho waa gartay waa wajeertan oo waan walaalanaya igu weehi cabaar si fiican dhinaca Djibouti dhulka la isku haysto ee dhaxal wareegay dhaqsaa la doonayaa dhawaan la eegayaa waa gartay dabadeedna markaan muqdisho tagnay muqdishona waa nagu xaasay waa gartay dee dabadeedna no waa hagaag iminka Suleymaan Maxamuud Aadan gudoomiyihii golaha guurtida dawladdii dhexe ee Soomaaliyana ka tirsanaan jiray iminkana aaminsan goosashada iyo inaad gooni isu taagteen Muuse Biixi oo madaxweyne ah labadiiba waxay joogaan Djibouti madaxdii waxaa la joogta geeska Afrika adduunkii oo dhan baa jooga waxaa la doonayaa in mid qura la ahaado maalintii aad kow u alalaastay midnimada aad iminka tiri waan ka shalaayaya maxaa diidaya in lagu laabto nidaamyo la kala samaysto arrintaa ka waran ma dhici karto haye rayigayga waxaan ku dhiibtay no walaa muqdishay no aad iyo aad waan kuu mahad celinayaa aadaa u mahadsantaha fikirkaaga wanaagsan ee kuu gaarka ayaad dhiibatay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaaga halkaa joogtid walaal siciid baan waxaan joogaa London
سعيد شركة جيبوتي يس مثلا نوع أنا نوع أنا لها نوع أورال هذا محد كوسا وينيسا waxaan ku sabaynayaa niyo horta markaad waxa loo baahan yahay hadda wax Soomaaliya ka inaad ogaato waxa kasoo maxaa kasoo socda ama aad ka faa'iideyso haye hadalka laba hadlayo qarmaajo 7 bilood u harsan tahay waynu ognahay wuxuu ku sameeyay sidoo ka yeelay heshiisyadii hore adoo raaliya arrintu farmaajo waqtiga u dhiman ma taagna waxay taagan tahay farmaajo shalow yimid beritana wuu bixi karaa waxay taagan tahay Soomaaliya iyo Somaliland isu keenideeda iyo inay mid ahaato si gobolka oo dhan mid u ahaado ujeedka la raadinaya ka weey aduu ma la socotaa waan la socdaa mana dhacayso midaan ka weligeeda dhici maysay Muuse Biixi madaxweyne aad jeceshahay Soomaha anu ma dooranay dadkaaga doortay like waa taageersanta ninka la yiraahdo gudoomiyaha golaha guurtidana ruug cadaaga waa taageersanta Talabaan waa taageersanayaan labadoodu hadday la soo laabtaan Soomaaliya mid qura oo nidaamyo iyo shuruudo la wato Siciid maxaa ku diidaysaa ma yeelayo naba wahagaag hadday noqotaan labadooda waa la dilaya aad baad u mahadsan tahay taa waa cilad weeye xagga dilka nagada waxa ka sii wanaag wax badan ka horeeya aad baad u mahadsan tahay waa ku mahad celinaya laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halo assalaamu calaykum ha walal soo dhawow magacaaga halkaa joogtid wahagaag daawadayaal waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala London iyo barnaamijka ku saabsan shirka Djibouti ee Soomaaliya iyo Somaliland iyo sida aad u aragtaan kulanka ka furmay oo ay madax badan ay joogto ujeedkuna uu yahay in wax wada qabsado oo aan gooni la kala ahaan la noqdo dad walaala oo mid qoraya magac qora laynka telefoonka adigoo markaa komentadaada ama fariintaada ku qoraya yes masano laynka telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaygu waa aadan dubad haye walaal waa taageersanahay waa yes waa taageersantahay maxaad ku taageersantahay walaal midnimada Soomaaliya anigu taageersanahay Soomaaliya halana ayaanu rajaynayaa inay dhacdo wahagaag arrimaha ay tabanayaan Somaliland adigu ma aaminsanid miya ma aaminsan ana ramaas wahagaag aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga noo ayaa tiri laynka kale telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام walaal soo dhawow magacaaga halkaa joogtid عبد الحجواب السلام يا si fiican waxaan ahay asalan Djibouti haye waxaan ka dalbanaya waxaan in odayo 70 jira waa gartay inaad fursad yar siiso oo hadalka ku xirmaan doonaya inaad dib taariikhda ugu noqdo laakiin waa in warkaagu uu daaranaada Soomaaliya iyo Somaliland exactly marka hore no mase yes no sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay midnimada Soomaaliya waa taageersana marka horeysa anoo kan maanta diidan laakiin midnimada Soomaaliya waa taageersana si wanaagsan waxaan ku taageersana waa maxay midnimada Soomaaliya waa maxay waa shanta Soomaaliya mabda calanku ku tiirsan yahay shanta Soomaaliya waa taageersana si fiican maaha Soomaali weyn maaha Somaliland iyo Soomaali si fiican afar iyo lixdankii markaynu xabashada dagaalka kula jiray haysadii la qaadi jiray waxay ahayd hawdiyo danood haadaa mameeso aanaa hurdahaanka lasma hilibkii raggu haadku boobaya toddobatis anigoo ayaan inta gidaha ku jirta ayaan ilmada rax ka siin jiray waxaan ka ooyi jiray maxaa ku yareeyey aad dagaalka ka qayb gashiday maanta waxaan diyaar ahay anoo reer Djibouti si wanaagsan inaan ku biiro haddii uu dagaal dambe ka dhaco Soomaaliya iyo Somaliland inaan Soomaaliya la dagaalamo waa gartay waxaan laakiin waxaan ka jecelahay Djibouti inay ka noqoto calanka ku biirto Axbi Axmed inuu ka baraha kala baxo kilka shanaad NFP ay soo noqoto Somaliland salaad ee soo noqoto inay noqoto ugu jecelahay taa weeyaan hadalkaaga waa dhageystay hadda waxaa la rabaa in tartiib wax loo sameeyo sida meesha ka muuqanaysa waa runta shantii Soomaaliyeed ma wada joogto laakiin labadii midowda 60kii oo kala tegay bal marka hore in la isu soo dumo si ujeedkan gobolka ka socda oo wax wada qabsiga guud oo u noqdo mid hagaaga arinta adigu ma qabtid miya halaagu ba ka dhacaya waayo wax tanna waan ogaa oo reer Somaliland oo dhow si loo geystay calankaasi u geystay maalintii
koob iyo lixdankii ayay ciidamada somaliland ee officerska ay ka dhigeen inay inqilaab sameeyeen waddankooda la soo noqdaan si fiican taasi waxay badeen inuu already koob iyo lixdankii uu fashilmay midnimadii si fiican haddadanay fashilan yihiin oo aanay u ogolayn inay anaga inay somaliland leeyihiin bay u haystaan marka maalinkan maanta taa laga laakiin arrin yar adoo raalliya somaliland waxay sheegan jirtay welina sheegataa in culays badan ay kala kulantay dhinaca soomaaliya oo markay yimaadeen walaalahood ay dhib kala kulmeen cadaalad darre ay kala kulmeen xagaldaacin ay kala kulmeen lugooyo ay kala kulmeen iminka waxaa jira siyaasiyiin somalilandna oo mucaarad iyo muxaafid noqon kara oo yidhaahda war maxaynu ula dagaalnay soomaaliya midda nala ku hayo annaga intii gooni isutaagaan sheegaya adigu arrintaa ma ogtaa inay jirto ma ogid waxaa jirta hadda horta Muuse Biixi iyo waxaan kuu sheegayaa iyo Axmed iyo Saleebaan waxba uma soo qaadi karaan somaliland laakiin iyaga ugu sarreeya maanta mansabka haya laakiin iyaga waa khaatimiin weeyaan dadka u shaqeeyaan ayagoo kuu shaqaynaya hadday ku yidhaahdeen dantii ayaa gashay mar kale inaynu midowno shuruudo dhiganno ka waran ugu dambaystii fikradda way soo jeedin karaan go-aanku laakiin shicibku yaalla ma hasta soomaaliya aad iyo aadaan kuugu mahad celinaya waqti fiicanna waa ku siiyey adoo iga codsaday weliba maasha allah haya walaalo waa daawadayaal telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka kulanka jabuuti ee soomaaliya iyo somaliland yes or no waxaad ku qoraysaa facebooka fariintaadana afka ka sheeg si halka aan uga aragno screenka inta aad kala maraysaan iyo sidaad u badan tihiin laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله. aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaad joogto walaalo cabdiraxmaan xaaji cidruus london waa ku soo dhaweynayaa shirka jabuuti ee muuse biixi iyo farmaajo iyo guud ahaan in wax la wada qabsado mar kale yes or no no haye maxaad ku sababeynaysaa yani shir macnaha aan dhihi doono yes waa imaan doonaa haye laakiin wasniga ama miisaanka ay leeyihiin labada wafdi يعني كان كي يمد صوماليا ووفد صوماليا ذا متقانا لو دنيهي واقرتي وفد هوغامينا موسى بيحي مدحوين موسى بيحي وفدي سو متقانا waa qoys okay waxaad u jeedaa macnaha ragga wada socda waa jufo kamida jufooyinka Somaliland waxa jira mutaqaana jufooyinka la jiro okay waa hagaag midaas hadan ka dhex galo waxa la eegayaa waxa weeye iminka markii xilalka la qabtay farmaajo madaxweyne qayr ra'iisul wasaare mursal gudoomiyaha baarlamaanka halkana muuse biixi doorasho ku yimid gudoomiyaha golaha guurtidana wuxuu noqday Suleeman oo isaguna kamida reer Somaliland labada ninba ninna hore u joogay muddo waa Suleeman ninna doorasho waa madaxweynihii shanaad haddii ilaahay isku qabiil ka dhigay adigu maxaad ku diidantaa aniga yani qabiil aan mucaaradayo aan diidanahay ma jiro haye laakiin wasniga waxaa loo baahnaa in ay wasiiro gudubirsi ama warsangeli ama dhulmaanto inay qayb ka ahaadaan okay adoo raaliya waan ku fahmay horta kulankan lama dhihin 4.5 ka Soomaaliya oo kale sidiisaba nimanka muqdisho ka yimid saddexdii nin oo ugu sarreeyay weeyaan taa waa isla fahmnay nacam nimanka halkan ka tagana eeg waa saddexdii ugu sarreeysan oran kara gudoomiyaha guurtida madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda isagu ma ayagu ku qolan yahay arrinta miyaadan ogeyn waan ogahay marka dee waad ka tagtay xoogaas oo uma ekeed nin raadinaya hal jufo oo jufooyinka meesha dega ka mid ah mar haddii madaxweynihii iyo gudoomiyihii iyo wasiirkii iyo wasiirada kale oo la socdaa ay dabcan kala noqon karaan waxaa laga yaabaa liiska haddaad dib ugu laabatid inaad qanacdid liiska ma ku laabatid markii barnaamijkan aad ka baxdid horaan waa egaye aadaa u mahadsanta waa ku salaamaya maasha allah هيا ولا لينك كلا التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم عليكم السلام وكسود وين يا مقعد قالك هتشوكت ولا لا waxaan joogaa Ottawa Canada وكسود وين ميل فوق بعد كسو هذا أتلانتيك إني عيسى كلا شركة جيبوتي yes or no مركا هوري yes محد yes وتري سو أدو Ottawa جوجا وليبا waxaan yeesu iraano waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed midnimada Soomaaliya ayaan higsanayna adduunku hadda waa israacaya annagoo Soomaali ah oo aan 15 milyan dhamayn inaan isqorqoroyno oon isriixriixno dan nooguma jirto
waxa waaye 30 sano iyo ka badan baa wadankii aan kasoo maqannahay waxaan rajaynaynaa wadankeeniyo mida dawlad mida walaalahayo israaca cadaalad koonfur iyo galbeed oo israaca waqooyi baanu nahay iyo koonfur baanu nahay iyo dhexdaanu nahay ma jirto Soomaali waa Soomaali magaalada haddaan marayaa taajilira Soomaali baan halka ayuu kaadi adiga waxaad raacsan tahay shirka waxaad tiri waa okay laakiin reer Somaliland waxay tabteen arrimo badan oo jira adigu arrintaa ma ogid miyaa maxaad ku xallin kartaa haddii ay arrintaa kuula yimaadaan yaa walaal ha israacda baan leeyahay Soomaalida waqooyi iyo tan koonfureedba aad u mahadsantahay adigoo jooga Ottawa laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaamaya cagta xaji soo dhawow magacaaga halkaa joogtid magacayga Yusuf Xaji Nuur waaye waxaa jooga Sweden aad baan kuu salaamayaa shirka Djibouti ma la socotaa yes or no waa la socdaa si fiican waxaa isdhihi karaa wax dhalanteed ah waaye sababtoo ah taas macnaha wax dhalanteeda no a ka wada no waaye waxaa isdhihi karaa marka waa sababeynaya anigoo sababeynayo waxaa isdhihi karaa madaxweyne Farmaajo maanta wuxuu heshiis la ahayn Soomaaliyada kale caadiga ahayd oo marka Somaliland laga soo tago halka jooji adoo raaliya waqtigan ku siinaya iminka laga hadli maayo Soomaaliya iyo federaal iyo laga hadli maayo waxa laga hadlayaa Soomaaliya jamhuuriyadda ka jirta ee federaalka iyo Somaliland markii hore waxay ahaa jireen jamhuuriyadda Soomaaliyeed Somaliland waxay go'day 1991kii waxaa la rabaa in dib loo midoobo oo nidaam la samaysto arrintu ma taagna maamul goboleed in la midoobo see u aragtaa adiga waxaa isdhihi karaa qorta dadka midnimada ka shaqeynayaan dad midnimo diyaar u ah ma yihiin waa maya qofka markuu midnimo diyaar u yahay midnimo ka shaqeyn karaa because qofka ma ahin inaad dadka la madadaaliyo oo been loo sheego la maaweeyo fiiri madadaalo meeshaan music ma jiro Farmaajo hadduu madaxweyne waayo berrito qof kale noqon kara waxaa laga hadlayaa midowgii jiri jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland adiga nin yaraa tahay dabcan midowgii jiri jiray inuu soo laabto oo mid qulalo noqdo oo ishaysata oo culus jamhuuriyad culus siday u cuslaa jirtay arrintaas maxaa ku diidanta adiga absolutely aniga isma dhahayo taas inay dhaceyso waxa kaliya Soomaali maanta ugu jiro inaa inta haddii ay goosayaan si nidaam loo goosto haddii kalena dadka si tartiib ah wax ay heshiis ku yimaado midowga Yurub oo kale waa wadamo badan misana iskaashi waxaa ka dhexeeya midowga Yurub ku midaysan yihiin waxyaabo saas oo kale waa laga shaqeyn karaa waa stiikara balse midnimada lixdanka oo kale inay soo noqonayso ma aaminsani aad u mahadsantahay waa ku mahadcelinayaa fikirkaaga laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baan kuu soo dhaweynaya codkaaga kor u qaad yaa هاي magacaygu waa Maxamed Axmed Xirsi waxaan joogaa wadanka Turkiga ku noolahay haye Turkiga aad joogtaa waa dareemaya codkaaga kor u qaad yes or no marka hore yes marka hore waa yes sababta waan sababeynaya sababta aan yes u leeyahay haye ugu horeen horta marka hore waan ku faraxsanahay dawladda walaalaha aan nahay Djibouti ee martigelisay shirkan midda xigta dadka waa kala fikir duwan yihiin haddana aniga ahaan gaar ahaan waxaan aad iyo aad u xiiseynayaa Soomaali weyn oo mid ah sababtan u daneynayana waxay tahay muddo 30 sano labada dhinacba kala maqnaayeen kala maqnaashoodan wax dan ugu soo kordhay ma jiro oo aan ahayn in la jiido marka waan ku faraxsanahay in Soomaali midoodo ee mid noqoto iyadan waqooyi koonfur la kala fiirin hal calan la wada qaato waa midda kaliya maanta Soomaaliya heer ku gaari karto een wax ku qabsan karta taas aan aaminsanahay oo waliba gobolka geeska Afrika nabad buuxda ku heli karo aad u mahadsantahay laakiin Somaliland shalayba Soomaaliya ahayd laakiin waxbay tabatay arrimay sheegatay arrimahaas ay sheegatay inay jiraan ma la socotaa aad waan la socdaa inkastoo qof yar ah haddana taariikhda wadanka si fiican aan ula socdaa waxa ay tabanaysan haddaan nahay koonfur inaan ka dhaqno mar walba waa waajibna saaran aad u mahadsantahay adoo jooga Turkiga oo barnaamijka ka qayb galay daawadayaal waa telefishinka caalamiga Universal Studio London iyo barnaamijka kulanka Djibouti yes or no salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogto walaal magacaygu waa Maxamed Suudan baan kala soo hadlaya soo dhawow seed u aragtaa kulanka Djibouti madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi iyo arrinka ku saabsan in mar kale wadajir iyo iskaashi iyo midnimo ka waran horta ma aaminsani wax la yidhaahdo midnimo ama wax la yidhaahdo horta iskaashi waa no marka no waay soo maha waa no sababtan kuu sheegay waxa weeye cagmadhiga waxaana rabaa horta jaanis inaad isiiso waa ku siinayaa jaanis dadka oo Somaliland ka soo jeeda ee raba midnimada wadajirka ee Soomaaliya anigana inaad fikirkayga dhageysato waa jaanis maya fiiri adiga hadidin adiga hadda adaa ugu bilaabay anigu waqti waa ku siinayaa laakiin ha miya yes mise no marka hore maya waa no
good ii sababay marka sababtaan kuu sheegayaa somaliland 30 sannadood bay gooni u taagneed maalinkan maanta farmaajo 4 bilood u harsan tahay oo 4 sannadood waddanka soo haysto diidana inuu somaliland marnaba uu la hadlo maanta horta in lala hadlo oo lala fadhiisto anigu waan ka soo horjeeda laakiin dad badan oo somalilandera oo maalinka maanta aaminsan inay guul tahay baa jira waxay u aaminsan yihiin waxay tahay farmaajo wuxuu ku guul daraystay 4 sannadood wixii uu somaliland gudaheeda ka waday ama dagaal ha noqoto ama ma garanaysaa dad mushaar u qora ha noqoto dhibaatooyinku somaliland halkaa ii jooji marka halkaa ii jooji waqti baan ku siinayaa horta taa annaga ma ogin aa hadda sheegaysid farmaajo hadduu meesha ka tago eeg haddii farmaajo meesha ka tago ee madaxweyne kala yimaado barnaamijkani uu yahay barnaamij la rabo in labadii dhinac mar kale lagu mideeyo adoonba shaksi raacinba arrintaa midnimada maxaad ku diidaysaa adigu anigu horta midnimo cagmadhiga waxa la yidhahda ma aaminsani sababtiina waxaan u aaminsanin waxaan kusoo koray aan ku dhashay oon ku barbaaray wax somaliland la yidhahdo waxaan ahay dadkii dhashay 1990kii markii somaliland la aasaasay waxaana ku garaadsaday waxa la yidhahdo somaliland waxaana wax kusoo bartay waxa la yidhahdo somaliland wax la yidhahdo soomaaliya iyo midnimo iyo jacaylkeeda iyo kalgacalkeeda midnaba ma ana arag waa runta iminka muuse biixi cabdi waa madaxweynaha somaliland waa la socotaa haye sulaymaan maxamuud aadan isaguna waa guddoomiyaha guurtida golaha guurtida wasiiradii dhammaantood jabuuti bay joogaan arrinkan baa laga hadlayaa sax ma sahlana go-aankeedu sax raggaa aad idmateen haddii ay soo laabtaan ay soo bandhigaan barnaamij ah walaaltinimo iyo wanaag iyo soo laabasho maadaama adigu aad ku dhalatay iyadoo somaliland la yahay see u aragta adigii inta kula mid ihi cagmadhiga horta waxaa weeye walaal waa mahadsan tahay dadkan aad sheegaysa waxaa soo doortay shacab annaguna shacabkii soo doortay baanay raggan kamaysan imaanin waxay ku yimaadeen rabitaan shacab haddii ay maanta taa ay keenaan uma malaynayo walow aanan aaminsanahay in aanay u malaynayo aanay keeni karin kuna dhicin awooddaasna aanay haysanin inay keenaan maanta waxa weeye shacabkii shalay doortay maantana way joogaan raggaas waxaa lagu doortay axdi inay ilaaliyaan iyo dastuurka inay ilaaliyaan waxaana lagu doortay wax ay somaliland ay ka midaysanto ah in aanay marnaba keeni karin waxa la yidhahdo midnimo inay hore usii socdaan mooyaane aad iyo aadaa umahadsanta waqti fiicanna waa ku siiyey laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogto walaalo cagta taaja aad ba umahadsan tahay magacayga waa maxamed cabdullaahi waxaan ku noolahay bristol aan ku noolahay oo waddanka u k mafahanta aad iyo aad yes or no shirka jabuuti marka hore niyo shirka jabuuti waa taageersanahay waa yes waa mafahanta maxaad ku sababeynaysaa walaal waxaan ku sababaynayaa horta soomaali magaca soomaali inta wadatan iyo meelay joogaan horta kaloo maarmaan ama hays xasuuqaan ama hays wanaajiyaan waa dad seember yani aana kalmaamirin mafahanta si fiican marka niyo marka lahaa yani hadda aan xasuuq oo kale markii somaliland ay leedahay yani xasuuqan loo geystay horta waa wax dhabe oo yani in laga raaligeliyo ay tahay haddana saasay tahay yani bulshada waqooyi ku nool iyo kuwa koonfur ku nool yani waa bulsho yani isku dhex jirta wada nool haddii qurbaha laho haddii dalka gudaha laho ka muqdisho joogay iyo kan hargeysa joogay yani uma kala laha qof sharci la weydiiye ma lahan marka dadku waa walaalo waa isjecelyihiin ee waxa isaysaan waxaan aaminsanahay waa siyaasiyiinta labada dhinac kasoo jeedaan waa ku gartay marka maxaa haddii ay jirto arrin la tabanayo kala tabasho maxaa diiday in la israali geliyo oo si fiican laysugu yimaado maxaa diiday oo loo kala maagan yahay niyo bulshada horta waa qoys wax diida ma lahan wax isdiilina waa laba ilmo adeer waaye yani ilmahoodi waaye yani mid kamid ah ayaa ilmihii dilay kan kale waa inuu ka raaligeliyaa waa shay muhiima raaligelintu waa in maxaa lalahay walaxta raaligelin keliya lagu eekaya maaha waa in dadka dhibka loo geystay yani haddii dii iyo qoondii wax loo qoondeyn karo in loo qoondeeyaa marka wixii tabashada ay qabaan laakiin arrintu yani tabasho way ka weyn tahay oo maanta yani aan ku raaligeliyo soomaaliya kusoo biro somaliland mid aqbalaysa maahan markaan si usii fiirino aada umahadsan tahay waa ku siiye waqti adoo jooga bristol laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhowo walaal magacaaga halkaa joogtid magacaygu waa maxamed cabdisalaan waxaan joogaa dalka norway kulanka jabuuti yes or no marka hore yes baan dhihi lahaa marka hore maxaad ku sababeynaysaa waxa fiican maadaama almost 30 sano la haystay in mar labaad dib la isugu soo noqdo yani wax la qabsado oo baraare la gaaranaanta wagaag waxyaabaha
somalilan ay inta badan sheegto arrinkii dhacay iyo dhibkii ay sheegteen ka sokow dadka qaar waxay ku leeyihiin koonfur walaalaheen iyagiibaa weli iscunaya siyaasadoodu ma degana isma collective maaha wadajir maaha ayagoonba wada jirin sidee ba noogu soo qaadi karaan midnimo arrintaa adigu ma rumaysnid anigu waxaan aaminsanahay in horta marka horeba midnimaa macnaha fal keliya soomaalida waxay dhahdaa fal keliya fool ma dhaqdo moogta waxaa loo baahan yahay markii dadku ay midoobaan un baan fahamsaa at least ay wax wada qabsan karaan oo yani culaysyo badanna ay degi karaan baan anigu aaminsanahay marka anigu kolley waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliyeed baan aaminsanahay aada umahadsan tahay adigoo fikirkaaga ku darsaday barnaamijkan laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagbadhige ha soo dhawow walaal magacaaga halkaa joogtid walaal magacayga axmed sheekh maxamed baa la idhahdaa waxaan joogaa waddanka sweden soo dhawow shirka jabuuti yes or no marka hore yes maxaad ku sababeynaysaa walaal marka hore waxaan u mahadnaqayaa dawladda jabuuti oo dhab ahaantii ah mid ma garanaysaay soomaali inay midowdo mar kastaba u heelan waxaan ku sabaynayaa waxa weeye walaal soomaali ma kala maaranto ummadda soomaaliyeed waxa weeye muddo fara badan ayay kala maqnayd intaa ay maqnaydna dhib mooyaane wax dheefoo haba yaraatee ay heleen ma jirto marka walaal soomaali waa isku baahan tahay ma garanaysaay haddii ma garanaysaay la kala googo-o waxaa la noqonayaa dawlado yaryar oo wada ducfiya markaa midnimada ummadda soomaaliyeed waxa weeye awooddeeda sharafteeda iyo quwadeeda iyo awoodooda ayaa ku jirta walaal markaa nimanka somalilan ka yimiday waxaan leeyahay waxa laydin soo jeediyey midnimada maanta qaata jaaniskaa maanta ka faa'iidaysta midda kale cagmadhigo waxaan kaa boobay anigu waxaan ahay nin reer somalilan waxaan ka soo jeedaa gobolka awdal waxaan leeyahay somalilanimadu maanta waxay noo goynaysaa maanta waxbaa laynoo ogol yahay wax fiican baa laynoo ogol yahay ummadda soomaaliyeed wayna jeceshahay waa walaalaheen ma kala maarano waxa laynii soo jeediyo qaata maanta midnimada soomaaliyeed waa muqadas aynu qaadan laan leenahay walaal intaasaan ku dardaaraya nimanka meeshaa tegey aad baad umahadsantaha walaal aad baad umahadsantaha waa kuu mahad celinaya daawadayaal waa telefishinka caalamiga universal studio london iyo barnaamijka ku saabsan shirka jabuuti ee labada dhinac soomaaliya iyo somalilan yes or no aragtidaada sababtan aad sheegaysid wiil iyo gabar qofkaad tahayba iyo adduunyada halka aad ka joogtaba laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogto walaalo walaal sayid xabiib sheekh yaasiin baa la yiraahdaa waxaan joogaa dalka maraykanka ha codkaaga kor u qaad walaal kor u qaad codkaaga ma ay maqashaa hadda waa ku maqlaa shirka jabuuti yes or no marka hore ma aaminsan shirka inuu xilligeedii dhacayo haye sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay Soomaaliya waxaad og tahay burbur baa ka dhacay dawladda Puntland oo ah hooyadii iyo aabihii dhalay ummadda Soomaaliyeed oo markii Somaliland ummadda Soomaaliyeed arbaabada ka xiratay arbaabada u fudhay xuduud iyo deegaano ka dhaxeeyo qayb kama aha wada hadallada sababtuna waxay tahay cagmadhigow ummadda Soomaaliyeed taladu waa ka wada go'da koox kooniya kama wada go'do taladu waa in miiska la saaraa wixii masiirka ummadda Soomaaliyeedna waa in ummadda Soomaaliyeed cid kasto ay khusayso waliba si gaar ah u khusayso waa in laga talageliyaa tusaale haddaan kuu soo qabto gobollada waqooyi galbeed waxaa ku jira gobolka Sanaag waxaa ku jira gobolka Sool waxaa ku jira Cayn baa ku jira gobolka Cayn waa la ogyahay waxay tahay sababtu marka in hal reer intay meel isugu tagaan ragga shirka Jabuuti ka qayb galaya oo Somaliland matalaya waa reerka Isaaq halkaa jooji waaya nin ka horeeya gocashadaas qabay horta dabcan universal wufuudda ma aanay magacaabin laakiin marka la fiiriyo wafdiga sida aan ka aragnay ragga qaar walow aanan liiska wadahayn yani maaha hal reer oo keliya rag isku jira waaye laakiin adigu waxaad qabtaa haddii 10 reer ay jabuuti ay degan tahay somaliland 10ka reerba inay aadaan saasaa adigu qabta miya may anigu waxaan qabaa Somaliland hadday rabto inay goosato haba goosatee waxa ay leedahay la goosata laakiin qof taagan oo gobol dhan ah oo soo taagan baan la goosanaya wax la aqbalayo matalan waan ku fahmay fikirkaas dad badan ayaa qabi kara sidaad oo kale dabcan iyagu Somaliland markaan fiirino mansabkeeda madaxweynaha golaha guurtida golaha wakiilada wasiirada wasiir ku-xigeenada qaabkay u samaysan yihiin dabcan waa deegaanka guud ahaan Somaliland laakiin waa lagu kala badan karaa dabcan laakiin wafdiga marka ay baxayaan
dabcan waxaa baxaya madaxweynihii guddoomiyihii golaha guurtida wasiirka arrimaha dibadda baxaya wasiirro kalaa baxaya raggaa wasiiradaha isku reer maaha madaxweynahana ku reer maaha arrintaas soo ma ogid adigu cagmadhigow si kale haddaan kugu dhigo majority-gu yuu yahay baa meeshaan imaanaysa laakiin hadda maba ka hadlayna reera waxaan ka hadlaynaa maadaama ummadda soomaaliyeed waxa ka dhexeeya ay yihiin wax masiira inta khusaysa in laga qaybgeliyo si fiican oo ay dhanka kalena waxa ay khusaysa dowladda federaalka waa hooyadii soomaaliyeed waa meeshii lagu soo cararayay marka inay dulmiso dadkii ay madaxda u ahayd qayb ka mida ku dhimato gobolka sool ku tumato sanaag ku tumato cayn ku tumato odayaasheedii iyo siyaasigoodii iyo masiirkoodii iyo kuwii dowladda federaalka u matalayay intuba ay joogaan sidoo kale cagmadhigo waxaa jira qayb kale oo kooxda hargeysa iyo burco ah oo Soomaaliya xilka hayso oo diidan waxa kuwaan ay wadaan waa in qayb laga galiyaa laftigooda adaa u mahadsantahay barnaamij kalan aan ku qaada dhigi doonaa guud ahaanba xubnaha dhinaca federaalka iyo dhinaca Somaliland iyo sida loo qaybsaday waa ku mahad celinaya adigoo jooga dalka Mareykanka laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وهاجاك داود يال وتلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو لندن لينك تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مغلسة ها وكم مغلسة مغلسة ها السلام عليكم عقمديق مياه ها عقمديق وعليكم السلام شركة جيبوتي ها يا مية يس اور نو عقمديق وأرض آدم كو سلام يا ها يا مية كلي ماشي كم شرتو مية مركه هوري يقول بالله يس اور نو كبعد يعني هلينا ما إلا ولا هذا كان لي سامسة إن يعني شركة إنه مد ولا عرشان وصور وينية very good ساس عمرك هيه horta mid baan ku sheegaya cagmadhigo markii hore mar dhexdaasan ku fiirsanay waxa tiri Soomaaliya Somaliland waxay isku ahaayeen wadan bay isku ahaayeen sida laakiin taariikhda 60 kaliya hor markii hore ka soo bilaabina hore inay laba wadan u ahaayeen markii hore sameeyo dadka had misleed gareyn maya oga raaliya aniga adiga ku murmi mayno Soomaaliya Somaliland waxaan ku iri eeg dadku deegaanka Ilaahay baa ku beeray gumaysta dalka haystay meelo kala duwan bay ka yimaadeen markii ugu horreyso calan Soomaaliyeed la saaro oo xora waxay ahayd 26kii June baan iri iyo waqooyi markii labaadna 5 cisho kadib Talyaaniga iyo Koonfur labadoodii baa midoobay 60kii inta maxaa ku diidanta adigu mise waxaad yeedaa xorriyad kale walaal very good taas hadaad tiri waad ku maadsantahay laakiin anigu mar dambe aan ku soo gaaray adigoo qof adigu waad fududaatay cagmadhiga noqotay adiga laftaada ما وان كان رالي قلنا يا حداد مركه هورات سدا ku afay soo hay halka nooga bilow hayo nood laba aragtiyood baan anigu qabaa midna waxa weeyaan in umadu wada hadasho naam horta marka maxamed abdi aadan baa la yiraahdaa afayeenka xisbiga kulmiye UK baan ahay ma sha Allah ku soo dhaweynaya marka waxa weeyaan in umadu la wada hadlo waa soo dhaweynaya si fiican laakiin maxsuulka ka soo bixi doona muxuu noqon doonaa meesha taala wali lama oga waa run sidoo marka hore waan soo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed inay u baahan tahay ama reer Soomaaliland ama Soomaaliya baa ahaatee mid waliba in la wada hadlo aqligu Talyaanu qorigu aanu talinin Soomaalina uma dambe uma baahna inay boqolaal inaan oo dambe iskaga dhimato la ismuquuniyo si fiican laakiin annagu haddaan reer Soomaaliland nahay waxaan aaminsanahay inaanu ama Soomaaliba aanu aaminsanahay inay Soomaaliland goonideeda ahaato Soomaaliyana goonideeda ahaato inay ku jirto masaalixda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan siday Djibouti horumar u gaadhay siday dadka kilinka jooga maanta ay baarlamaankii wadanka Ethiopia halkii ugu sarreysay maanta ka marayaan sidaas oo kale si la mid ah inay ummadda reer Somaliland ay noqon karayso ummad xoogan oo intii ay midnimada ku jireen wax ka wanaagsan samaysan karaya halka igu kaadi iminka Djibouti waxa ku sugan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah xisbiga talada haya adiguna aad sheegtay inaad wakiilka uga tahay guddoomiyihii golaha guurtida Suleymaan Maxamuud Aadan iyo wafdi balaaran waa la doortay waad idmateen meeshii bay tageen waa la wada hadal kale ka horreeyay way soo laabteen faahfaahin bay bixiyeen waxay sheegeen inay laga maarmaan tahay in dib la isugu laabto adinku marka hogaamiyaashiina ma ku gacan saaraysaan go'aankay soo qaadanayaan go'aan shakhsiyaad maaha Suleymaan iyo Muuse labaduba waa shakhsi bay noqonayaan laakiin go'aankani waa go'aan shacab weeyaan waa ku fahmay shakhsiyaad waxba ma matali karayaan dabcan idinkaydu kula soo laabanayaan hadday ummaddan kula soo laabtaan ummadda reer Somaliland bay u taallaa laakiin go'aankaasi go'aan ummaddana u qalmaya maaha dadkana u qalmaya maaha shalay markii ay Soomaaliya ka go'aysay shirar ballaaran baad qabateen moogtahay waxaa ka qayb galay aqoon-yahan odayaal waxgarad dhalinyaro cid kasta go'aanka waxaad ku gaarteen inaad Soomaaliya ka go'daan
maanta markay muuse iyo saleebaan iyo ragga kale soo laabtaan ee odayaashii iyo dhallinyaradii iyo waxgaradkii dib loo fadhiisto sidii 1990kii ee laysla garto in dib loo laabto arrintaas adigu ma qabtaa adoo weliba xisbiga talada haya ma qabno shacabkuna ma qabaan laakiin weli lama gaarin ogow lama gaadhin laakiin hadday timaado baan kuu sheegayaaba laakiin mid baan kuu sheegaya waxa weeyaan 1990kiina aragtidani aragti siyaasiyiin riixaysa ma ayna aragti shacab ahayd waaba ku iriba dadka kulmay 1990kiina dastuur baanu ku xalaalayno afti baa loo qaaday lama diidana referendum baa lagu xalaaleeyey lama diidana marka wax intuu dad meel tagaan ama dad meel fadhiistaan qayb ka midi ay goyn karayso maaha aad horta kuugu mahad celinaya waqtina waa ku siiyey laakiin waxaan u arkaa dabcan inaan ka warsugno kulanka ee bilowda maanta iyo waxa uu ku dambeeyo waana kulankii labaad dabcan wuuna jirayaa midna yaanan ka tegin in arrintani ay tahay arrin aan ku koobnayn soomaaliya iyo somaliland oo keliya arrintaasna inaad qalbiga ku haydaa waa muhiim dabcan nin waxaa tahay xoogaa leh umalayn maayo arrintani cid kalean somaliland iyo soomaaliya aan ahayn inay masiirkooda ay tahay ka talinayaan aad baa umahadsantahay dadka meesha iskugu yimi inay dad soomaaliya yihiin inay iyaguna masiirkoodu labada goon uu ku dhex jiro sharaf iyo wanaag aad umahadsantahay waa maasha allah laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halo asalaamu calaykum halo walaal soo dhawow asalaamu calaykum magacaaga halkaad joogtid waa dhawaay asalaamu calaykum xag fadhiga calaykum asalaam magacaaga walaal halkaad joogtid magacayga waxaa la yidhahdaa mine maxamed waxaan joogaa muqdisho aad baan kuu soo dhaweynayaa shirka jabuuti soomaaliya somaliland yes or no marka hore xag fadhiga horta no iyo yes ma la isku dari karaa waa la isku dari karaa adoo mid walba macnayn laakiin taa jecesha adiga qiyaasta cagudhiga waxa waaye horta yesna waa noqon kartaa nona waa noqon kartaa sababta taa yes waxa waaye soomaali israacda lama diidi karo walaal waa loo baahan yahay waa sax noodana waxa waaye qofku markuu madaxiisa meel u helo mintihiisa meel u raadiyaa si fiican marka wali farmaajo madaxiisa meel uma helinin marka minjihii meel uma raadin karo marka waxaad u jeedaa xaggaas ay dhag noqoto ayay wax raadin kartaa markay dhag noqotay wax raadin kartaa nacam saas weeye aad iyo aad aan kuugu mahad celinaya adoo muqdisho jooga maasha allah labadaba waad qaadatay yes or no waa israacisay alcadaala waay laynka ugu dambeeya iyo barnaamijkeena daawadayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuusoo ku maqlaya magacaaga halkaad joogto walaal walaal axmed cabdi baa la idhaha waxaan joogaa london haye walaal marka hore waxaan taageersanahay shirkaas haye sababtu maxay tahay walaal sabab horta intaan taa u gelin aan ku yar saxee waftiga somaliland maanta ka yimiday waxa uu leeyahay dhammaan gobolada waayo dad badan baa saasha ku weydiiyay xoogaa laakiin fiiri aniga aan ku saxad itiri aniga ma dhihin see ii saxe aniga adigu ma dhihin laakiin dadkaa ku lahay adigaaba saxayay dadka aada umahadsantahay aada umahadsantahay inay sool iyo awdal iyo ilaa iyo gobolladoo dhan ay ka wada socdeen si fiican kale shirkana waxaa la gaaray maanta waktigii soomaaliya iyo somaliland ay kala bixi lahaayeen iyadoo caalamkuna ay ka daaleen isriixiix iyo wada hadli mayno somaliland waa qaran tashaday waa go-aan shacab ma aha go-aan shaksi keliyaadkii magarantaa uu gaadhay musabixii maanta awoodda keliyaadki uu leeyahay waxa weeyaan inuu ka turjumo rabitaanka shacabka jamhuuriyadda somaliland iyakaa go-aankan gaadhay cidina ma qasbi karayso cidina markii hore may qasbin 60kiina cidimay qasbin iyakaa u tegay soomaali walaalahood iyakoo jacayl iyo kalgacayl u hayay jawaabtiina way heleen maantana mar labaad iyakaa go-aankan gaadhay marka wax lagu daalaa ma jiro caalamkuna markhaatimay ka noqonayaan maanta aad iyo aad haddii aan kaa dhex galo walaalaheen soomaali dad walaalaabaynu nahay oo wada haddii aan kaa dhex galo iminka wafdiga maqan somaliland buu matelayaa dabcan somalilandna kalsooni bay ku qabtaa inay xagga u tagaan way soo laabteen markay yimaadaan shirar ay qabteen ummadday la hadleen gobolladii ku wareegeen waxay u sheegeen waxa dhacay kadib shir baa la abaabulay waa laysu yimid sidii somaliland shalay loo go'aansaday inay gooni u ahaato ayaa loo go'aansan karaa inay gooni usii ahaato ama waxaa la go'aansan karaa inay markaa dib u laabato labadaas go'aansi oo shacabka ka imanaya adigu labadaas ma diidanta hadday shacabka ka yimaadaan madaxda maaha waa shacabka walaal horta waa runtaa weeyaan madaxweynaha somaliland shacabkaa soo doortay cod baa lagu soo doortay si fiican maanta haddii uu la yimaado taas oo caalamku ama ay la yimaadaan ama walaalaha iyo soomaaliya ay noola yimaadaan shacabka reer somaliland diyaar buu yahay
weliba shacabka reer somaliland waxa uu diyaar u yahay meesha loo bato way isku raacayaan oo baa dad iska wada hor imanaya marka haddii xitaa dadka aaminsan in chance kale la siiyo dadka in laga qaado cod ama afti hadiiba la doonayo diyaar bay shacabka somaliland u yihiin taas meeshii loo batana waxaan kugu bishaarinaya weliba shacabka reer somaliland inay dhammaantood wada mari doonaan laakiin anuu nin reer somaliland baan ahay walaalahayna cuqdad uma hayo waan soo dhaweynaynaa inaan wada hadallo waan soo dhaweynaynaa inaan wax wada qaybsano waan soo dhaweynaynaa inaan cuqdad nagu jirin maanta ma doonayno anaku reer soomaaliya ma lihin maxaa waxaan loogu sameeyey ma lihin waxbaan idinku haysanaa ma lihin maanta waxbaa naga kin maqan ama aad naga baabiiseen keliya waxa maanta aan doonaynaa waxa weeyaan inaan laba dal oo jaara oo walaalaa aan noqono dabeetna aanu move on aanu hore u socono wax wada qabsano aanu iyakana waxay nooga baahan yihiin ku caawino annagana waxaanu uga baahannahay aan nagu caawiyaan laba walaaloo gacmaha isqabsada aan noqono oonu maanta weliba iska xigno dadka kale oo aan iska xigno maanta jabuuti baa noogu dhowa aanu annaka iyo soomaaliya iska xigno waayo mar baanu mid ahaan jirnay jabuuti weli maanaan midoobin waa wadan gooni iyo ka haye laakiin xamar mar baanu midownay dadka waan iska xignaa laba walaalo mataana aan noqono aan wax wada qabsano hore aan u socono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu aad aa umahadsanta adiga ayaa ugu dambeeya barnaamijka daawadayaal waxaan u mahad celinayaa telefishinka caalamiga ee universal agaasimihiisa magaalada muqdisho cabdulaahi xirsi kulmiye iyo weliba cabdulaahi axmed nuur oo iyagu ku sugan magaalada jabuuti iyo weliba abubakar agaasimaha iyo guud ahaanba bahda universal ee jabuuti waa barnaamijka ka qayb galay waxaan kaloo u mahad celinayaa injineer axmed abubakar oo isaguna barnaamijka aad uga qayb galay waxaa soo saaray barnaamijka cabdalla cumar madhiir saaxiibkii cali naaji iyo weliba maxamed yare dhinaca farsamada maxamed cabdalla cumar isagana waa u mahad celinayaa waa maxamed axmed xaaji cagmadhiga oo idinle intaanu yarahay intaanu weynahay inta jinka iyo dhaawalyaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu